وحكمتها اللي بوليس الدول البنادق جنرال صادق مرة هذا يمكن كوري ويجلس الرغم تغيير هذا معناه إن وبحياة ضد الصوماليات يا حاول تحديد يعني فرماجو يعني هورس الحيوي كريه معنا وهذا الفرق الدرجوين كيس إلنا راح يبيو وحتى سويسي كان سود جاي مصورة هل كان بيجي بين دويت وحنا إحنا حالين كجاري ضبطنا خيار وكوينا نحوينا كدو نحوينا إحنا قرقر سي كولا تجيبي وكسر ولما جرى أصوات إنجيلنا يا فرنسي كذا كاس ونبضة وواحد سكان أيوة أباري تنيو كولا تجيبي معنتي أبار كل الدهون أيام نظام كفرماجو وهو صوت العيلة مقاد ترى بدل عفوا بيقول هنا بور كاكتس تاسو عادين وهي إنه تجار كوتي أو مرات بيقول قد صديق بيقول يسوع صلاة فرماجو تبيه وارجي روان بارك إنه ديجان كيسي يسوع صلاة ولما بعد سكوتي إن الله الله نظام كأولي هذا كان هشيس كأسوق قادم هشيس مدام أسوق قادم كلا يحضر وزيرين هذا هو الجوع هذا الشكل الجوع ده كيس يدين كيس وحرنا وركوا قدام بيننا لكن أنا شغلته أنا حيوان الله المسؤولين تنبيه يوحى ومحكمة الكسور تقدر على صادق منه وحدوتين مدحوين فرماجو مدحوينه ومدحوينه وجيفة جنرال إدريس الجن ومحكمة الصومالية كنت ودنبيلا وهيومن رايتس ووتش هذا حقوق البني آدم دولتين على سوق مدحوينه وجيفة وجيفة ما غير نمط جنرال صادقنا جرويسي وجوي لي marka runtii ciyaarta farmaajo aan aad baan fahamsanay dadka deegaanka waa cabireen ra'yigooda waa aragteen mudaharaadyada ka socda deegaanka waxaan ku sheegaynaa dadka deegaanka qofku soo weerara xaqu difaaca dada inaan naftaada difaacda sharaftaada iyo karaamadaada inaan difaacda farmaajo madaxweyne sharciya ma aha waqtigiisu waa dhamaaday waa hogaamiye kooxeed jooga fila Soomaaliya ciidamo ka keensaday deegaanadiisa ayuu rabaa dadka inuu ku khalkhalgeliyo kuna qabsay hadallayna kuwa ciidamada ku jira oo anaga qaraabada waxaan leenahay masaajidka isku goynaya aan noqonayna ka haran nidaam waqtigiisu waa dhamaaday yuusan guryaha hooyadii iyo aabihii rag ka mid a ciidamada aabayaashooda lahaa rag ka mid a ciidamada hooyooyinkooda lahaa oo u sheegu yiri beenta farmaajooda ka leexay waxaan u sheegaynaa inay isaga leexdaan beentaas haddii la yiraahdo aad iyo aad loo mahadsantihiin waa laga dambeyn doonaa dadka deegaanka iyo dadka reer muqdisho nabadda jecel waxaan u baaqaynaa nabaddu difaaca rabtaa inay ka difaacdaan hogaamiye kooxeedka farmaajada mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka koowaad waxaan rabaa inaan u tacsiyeynaa ilaa wayna iyaga rajicuun dadkii caawafiidkii ku dhintay weerarkii ciidamada farmaajo ay soo qaadeen oo deegaanka sheekhu ay kusoo qaadeen intii magaalaha naxariisto intadaa waxaan ilaahay uga baqayo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu kuwii dambiilayaasha ah ee muslimiinta ay farkaas geysay waa lagu ciqaabi doonaa insha allahu haddii alla yidhaahdo sharcigaan sarin doono intaas kadib laba kun iyo toddobiyo tobankii farmaajo oo dalkan ku yimid nidaam doorasho dimuqraadi laba madaxweyne isaga xilka ugu horeeyay deegaankan ka soo jeeda ayaa labada dhinac inta ka mareen oo maxkamadiisa qabtayna kor taagan markaasaa laga ku soo dhaweeyay waxay ku ixtiraamayeen ama lagu soo dhaweynaya xilka loo doorto oo hay-adaha instituushinada dowladda wax doortay loo ixtiraamayo waxay dhahay dastuurka aan haysano iyo shuruucda dalka iyo dimuqraadiyadda xukunka ee dalka ka maqan
daro dalkii 2017 sidaas lagu daro maanta oo 2020 aan joogo farmaajo ku bedelay dictatoriyad kiritaan oo wax sharciya iyo wax nidaam oo kaliya inuu shaqeeyo si jiro mudahaleedkiisa wuxuu ka 7 February 8 February 2021 farmaajo dalkan uu sanaay haddana sidaas ay tahay ila Soomaaliya hadda muddo 3 bilood sanaay fadhiya waxaa kaloo intaas dheer inuu baarlamaanka labadiisii aqrinta kala reeyay oo bari shacabku u tegay oo leeyahay waxaan u baahanahay inaad muddo kordhin sameeyay oo aan si ahaan muddo aan caynayn 2 sano ka bilaabanayo aan la warqabin inuu kamaanay Allah calamayta inuu rabo inuu ila Soomaaliya si dhaxay waxaa kaloo intaas dheer ciidamada qaran inuu uga shaqeynayo qabyaalad iyo dadka in muddo si aan la socotiin jaraala saada tariixa qoyska markii madaxweynkiisa uu dhamaaday uu dalkan Faransiya gaadhin doorasho hal ah ayuu garaadiina ka xayuubiyay xilkiina ka qaaday cid ama nidaam ugu soo dheeday ama loo maray oo shaqo tilmaamaya inay isjiro sidaas oo shaqo saraakiisha ciidamada waxay leeyihiin ashmar ma yiraahdo oo qaab jira sarkaal waxay leedahay dacwad loo haysto dacwad inta ugu soo dheeday ay tagaan maxkamadda dacwad ku soo dheeday xukun weyn markaas kadib ayaa madaxweyne u dhigay asagoo madaxweyne rasmi aan ahayn oo madaxweynkiisa uu dhamaaday ayuu asagoo nidaamkii dowladnimada garab maray wuxuu isku dayay inuu gacantiisa ku qoro wixii asagoo qoro oo waraaqo sida cabdilashdeey laga soo daabacay oo ka soo daabacay xisbiga Soomaaliya waana si gab waxaa kaloo intaas dheer qabyaalada farmaajo uga shaqeynaya Soomaaliya cabdilashdeey ogtay inuu ahaa dambiilada ku soo xasuuqay gobolka Galmudug oo hay'adaha caalamiga xuquuqdooda ay eedeeyeen oo xeelaaninta dacwada ku soo oogtay oo sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir ay dacwo ku oogtay ayuu farmaajo geedo baabuur iyo lacag iyo ciidan ugu diray oo laga soo qaaday ayaa lagu soo dhaweeyay gobolka magaalada Muqdisho ayaa la soo geliyay fila Soomaaliya ayaa la geeyay waxaa dhex fadhiya ninkii mujrimka ahaa oo maxkamadaha dalka ay xukuumeen adduunka dacwada u haystay inuu fila Soomaaliya dhex fadhiyo saadar nacaaw oo raacaysanayo uu leeyahay waa dambiil ah la soo qabto isagoo cid dacwo haysan aysan jirin waxay ka marqaati kacaysaa fidnada iyo qabyaalada farmaajo uga shaqeynaya fila Soomaaliya waxaan rabnaa inaan halkaan ugu sheego farmaajo fahad iyo biixi wixii dhib deegaankan soo gaaro ama dadkan soo gaaro mas-uuliyadeeda idinkaa qaaday waa in kula xisaabtamayna la idinkagana hari maayo insha Allah ummadda Soomaaliyeed ee deegaankaa degay ee jaraala saada ka dhashay ee annagu xildhibaanada aanu nahay waxaan leenaha walaalayaal oo diyaar garooba haddii lagu soo weeraro oo naftaada la soo weeraro oo maalkaaga la soo weeraro oo sharaftaada la soo weeraro waajib diiniya waa inaa isdifaaca hadda iska difaaca soo bahaysay oo dad iyo dal iyo diin iyo dastuur wuxuu nahay mid ra'iisa jira gacan birahan iskaga qabanayna insha Allah taala hadiya dhamaatay رمضان كريم أمام أمة الصومالية وهل جوجان أريد أن أعاون مشان سكون مثل الباندي يقول لي فهي رمضانتي فرماجو تدخل كل اللامي حدودك أيام كمية ها أو كل يطري توكي هو يري حسانة على قطعه asagoo ugu soo eedeeyey qodobka 184 ciqaabta Soomaaliyeed oo macnaheedu uu yahay toogasho ama muwaadin Soomaaliyeed oo xildhibaan ah waxa lagu eedeeyay waxay ahayd maaragtay madaxweynuhu markuu dastuurka ku tuntay xaq waxaan u lahaa inaan madaxweynaha soo eedeeyo kuna eedeeyo dastuurkii uu jebiyey baarlamaankana mooshin ka keeno arrintaas markaan ogaado ugu soo eedeeyey maalintaas laga soo bilaabo iyo ka horba wuxuu waday inuu dastuurka iyo waxa Soomaali ay ku heshiisay uu ku tunto dad badan ayaa maanta maaragtay alxamdulilah rabbil caalamiin soo gaaray meeshii aan joognay 2017 markaan indhaheena aan kala qaadnay aragna farmaajo meesha ku socdo iyo sida uu ugu tumanayo sharciga وإلى مهندس مانت الصومالي محمد مالك في جوجان إن البوزيشن كان سو جارين
هذا مارك إلهي وحمدنا ما أنتم وحي مريسا جنركي مسؤول شقيني أفرتي سنو ومارك داعب وها لشقيني وها وحوى الباق ديار بانوها يمركي وقت يصير مالي الروسي ويدي إنه حال شريكيس شركتي سعد شركتي يعني ضربوا ما يسمرني وحاول شغيستا وحاي قبل كل ماذا قارئ إنه واحد وكشقينا واحد من كشقيو كذا عادي سؤال كانوا مشابهين وعلي شيء هذا تصور له وجدنا حفر إمارات العشرية على ثلاث بس بشكلين فين كاس وفين كلاود يكون يتوان كتضيف له يعني مسؤولين وحكم جرا ويسومالي من الواقع كذا عاب لا ما جرى عن كل شيء عاود فين كاس كذا ماضي والدنيا دي كذا ماضي وحنا أسرع أنا عاود هاي دولان عب أو برير وضد دنيا أبصر مارك عاود صبرتين وراه شيء تاريخ ده عمل هنا يا واحد كلام مسؤول كويس مرة مريض دي جوتي سيدا مارك ده يعني واحد ليس مريض وكان وسيل ساتان مريض هذا الشيء كله يرادو وان كنا نطلع من التغيير كتير لا تقال ما هي مسؤول الجنائي أيوه إنت كضعيف أيه تقالين ضد جوجانا وضد أبيشوت أي كنتين أيه كنتين شيء إسكر رياح على إسكر العناية maantay adiga oo ka tabarya ee Soomaaliya ku hareeraysan suuragal ku noqonaysa in cabrusid dadkiisa dadkooda inta ku timaadid dadkooda madaxda siyaasiyiintooda aad caafimaad kala baxday ku suuragelinayso waa iska qiimeynaysa waa gudka waxa ku hadlaysid waxaan kula talinayaa farmaajo ka joog maanta maalin aan ahayn taanoon aan ka shay aad uga doontaa ka joog dadkaani dad nabadeed weeye dastuurka iyo ummadda Soomaaliyeed wixiisa ku soo noqo labada ku shaqeynayso tirida kaliya ku furxaa waxa way xataa teendada suuriina ku noqdo saxma waa inay iscasishaa meel kale ku furla ma shaqada dawladda ku sheegi jirtay wala laga dhacay sheegi jirtay filmaanada xigta waa soo xirmay adiga mid ka darasmay inaad ku caalis jirtid bal xageeyo ku arkay laba aqal ku dooran kala qaro meel isku soo xiraaya markaasaan aynan qoonki ku xirnaa la gacmaha taaga يعني ذلك الصوماليين أنت أسبوع كان عامل بدين وأنا فانسين ما دعوا وين معكم شيء هنا فرما معكم شيء هنا دعوا وين وكيس مجريات كان يبرتي وعم شيء هنا وقت يا صور ما علي هبوسوا لي وين ماشان ساعات إن تعلمت ما في جنرال ساعات ماشان كلا تحديد واسكت دريم كراينيسا حالين المدة ديك الجوجي عندكم مصر صعدوا أنا نجارسيو كجوب هسوا هذه ماشان هذا سؤال دو سومالي نحن يقعد ترى نبدي يا لدمية قبيلة الله نقضي قبيل كمان نشقين فرماجة على السعودية فرماجة على السعودية قرنا ما كشقين إني تاسوسنا نسيني وليش إن الله السعودة ما أنت ما رأيت تجري العيد ما هو على هندسك إلا ما أنت قبيل كرشة كيسان ما أنت وبيري نوع علينا كسو بحر فرماجو نكود بيرشقين أيوة جنرال سالفون ما يشوف كبحر كبحيسان حتى بقعد جنرال سالفون وقتين سو فرماجو وسوي شيء بعمرات وعلى ذي سؤال قلدينا بحكم دي هاي بباكين وعلى الحساب كمايا إنجليز كان كمان نبيع واسنقانا حتى الدقيقة نقانا والدعوينا إنجليز كان رجال دعوينا فوق بحسن ميسي هي كذا ماشان كاس كوينا لوكل كان بحسن ميسينو محكمة دانور كبنات دي مدش على نقاط على يدي هاي وعلى ذي شيء نحن جوجا أكو سود دقيقينا دي قاعد على نيسان جوجا دولة ماشان بيجوتنيك أكمل على نيسان وانا وقت يصير ماله أنت سامسونج مبني أبلا توفن بسم الله الرحمن الرحيم. ولدي منطقي عاوة أنا محمد ياني الراشد شعب غير مقدشو شعب الصومالية أظن عنك ملو شعب الصومالية مدو مدين ولا لبعض سنة وصل بالبيئين وصل بالبيئين حكمك سيك يلدي كدارا أفضل سنة ومحي لوكا المولكا الوريد عرف الصوماليات عادة صوماليات طقم صوماليات أظنتي وحي أدهيت لوصل عالماني دباتني لوصل بحي لكن كنت دولة هذا جدا ومدينها كان فرماج ولا كيهي يتوقع الجلسي انتي كهر
horreysoo dhan waxaa loo haystay in niman si niyad wanaag inuu sheediraynayo ama dood iyo intii ku qancinaya laakiin arrintaas waxay beeyowday maalintii inta baarlamaanka la tegey si sharci darro ah laba sano loogu qasay arrintaas waxaa ka dhiidhiyey daraasaadka Cumar Xasan oo runtii isaga oo khatar geliyey mustaqbalkiisa iyo darajadiisa laakiin xaqa ka dhex buuxaya daraaddiis runtii u bareeray sheegay mar kasta inuu xaqa guulaysanayo anaga waa nugeyn waxaan ku mahadcelinayaa maanta shacabka halkan jooga reer Muqdisho iyo inay janaasaadda ah u soo baxaan inay u mudaharaadaan run ahaantii hadda wixii ka dambeeya mudaharaadkaas iyo rabitaanka shacabka uu madaxweynaha u maleeyey inaysan shacabku aysan rabin dimuqraadiyadda ama xukunka kala wareegista aysan rabin runtii maanta waa la muujiyo ilaa 10,000 ilaa 20,000 oo qof maanta soo baxay waxaan rajaynaynaa reer Muqdisho iyada oon qori caaladiisna lagu caburin waxna lagu caburin inay soo bixi doonaan berrito iyo wixii ka dambeeya inay soo bixi doonaan ayna ku difaaci doonaan rabitaankooda inay ku difaaci doonaan waxaan runtii baaqii ay jeediyeen xildhibaanada ayaan meesha rabaa inaan ka jeediyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliiska ciidamada qalabka sida dhammaan mudaharaadayaasha oo raba in shacabka Soomaaliyeed yaan xaqab ugu furin meeshii janaasaadda uu qaaday qaad damiirkiisa wuxuu sii waayey inuu wiil Soomaaliyeed daaliyo sii waayey waxaan rabnaa adinkana sidoo kale inuusan damiirkiina uusan idinsiin in adig Soomaaliyeed daalisaan shacab Soomaaliyeed waxay rabaan xukunka in si nabadgelyo ah looga kala wareego waan soo dhaweynayaa maanta runtii dad halkan jooga guusha ay dhaliyeen waxaan runtii ku baaqayaa in la dhamaystiro guushaas waxaan fikri aan ku wareejinayaa ajacad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما عندي حال الوقت الجبال فصل أو حال الألتر هو بس ما تصور ما لو كان الألتر وصوت عفوي الجبال هذا سكان الجبال واللي هذا معنا دايما أنا وعن قبائلي هنا هذه تصاعد في الجود وده شروط ولا شرط اللي قاعد فيه سكان الوين تدخل قلت مثلا في الصومالي ماشي كتير أنا اليوم عندنا الشيخ روميو دولة حكي الأماري هدي وشي وين تورشين اللي للرغم خالي اللي السبع اللي وصلنا صارت وحكوا شقيني وسكان الصوماليات شروع وحكوا شقيني هدو يحكي وانا قد ما تدور شهر هذا أو سياسة هلقى الشيئين اللي هدول بدلة شكل طبعا مكان أنا كان قبل شيء كله صادقات يوجا الشيء بسماه بهم تاعي قولي ماشي أو شيء كل واحد قلناتري عيد الصومالية ما أنت قابل لا ما حكي أنا غير كدوي تكتب الدوسي ما أنت هالكذي يعني بعدين فحكوا ترينا يا عقلي تل الدبلو يعني حكوا الصور مريض سياسة بافرن وده الشيء بلوغ عنها بدأ حبابته كلها دولين ولا فدرال وين تيرم باجرة حد يقول باي مركا إلى أنا حكم بعضنا هي حد حلقة نجوا كان قبل حد يفكر يسار قبل قصة طبعا يقص عن بدر معها وحنا حبينا تيجي كل ده لو سألوا هنا بقول كذا هلا جيجو هل الشيء عارض وهالشقيو مسكاف وهالشقيو سمو قدام مرتقى صادق السوس عنا نشير كرو ما حرس سياسة سوكو أيوة حروا إذا ماذا قالوا في السلاح ولشنا سراكيشنا ما ندري سكو شرطة مشغلين سكين والله هذا تراني صادق ما بيسوي عندنا وصارش تكتب جوجا كل يسيو وعاشنا جوجا هذا ما بدي جوجا نجي جوجنا ترتيب هالوش قيو أنا واحد يوم لا يوحي نبضع يوحي تفشينا يوحي أنا كشغل لكن كل يسوى صباحنا ما أقبل ما نسوي إلا بمكان يوم بسم الله الرحمن الرحيم مواضيع شقة سياسيين حلوانات السلام عليكم ورحمة الله waxaan rabaa aniga inaan dhowr dheer ilaalo qofka meeshaan aan joogno waa shir kale dadkan deegaanka oo reer shir kale iyo ergeedaan joogaa waxay
waxay tirsanayaan oo ay caawa bannaanka kusoo istaageen oo dhammaan shacabka meel kastoo joogo meeshuu hore iyo nawaaxigeed guri kasta xilligaan aan joogno dad bannaanka taagan yihiin waxay la yaaban yihiin waxaa la leeyahay duulaana ay ku soo socdo dad shacaba oo maaragtay guryahoodii iyo afurkii soo afuray oo suxuurtii iyo maaragta taraawiixdii inay tukadaan sugaya ayaa dadka dhagohoodii waxaa aad ugu badan oo aan dareemaynaa culayska aan ku dareemaynaa in la leeyahay colaadna ku soo socda dadku meeshaan degan waa dad qabiila hadday dadku qabiil yihiin meeshaan deganna waxaan leenahay dadkaan qabiilku ah meeshaan degan dowladda la leeyahay ku soo socotaa iyo codka ugu soo maarkuray oo ku soo socda waa ka digayna odayaalaan nahay dadkii qabiilku deegaankaan nahay dad marasaha meeshaan jooga waxaan rabnaa arrintaas inaan ku kalsoomin oo dhibaato aysan meeshaan sababtaa waxa maanta lagu soo yiyimo soddonkii sano la soo asaasaya inaysan maaragtaa sabab u noqon dhibaato meesha ka waxaan rabaa marka jalmasaada wuxuu ahaa amar uu yahay taliyihii booliska gobolka banaadir xilkii waa laga qaadanaya garaadihii iyo xuquuqdii ciidamada waa laga qaadanaya asagoo shacaba ayuu shiir kula yimi waxaa loo daba joogaa waa fahmi la-aantahay waa dareemi la-aantahay waa la yaab ma jirto garaadihii aad ka qaadeen sidaa sheegteen xilkiyaa laga qaaday in marka asagoo shacaba deegaankiisii iyo maaragta meeshii dheerkiisii u joogay guud ah hadduu dego welwel shacabkii u dhex yimid iyo ummaddii dheerkiisa ahayd la yidhaahdo dowladdiia soo weeraraysa dowladdaa soo socda aanan soo arkin adoo hadeerta meel kasta aan ka dareemayno shacabka soomaaliyeed attention taagan yahay wax la aqbali karaa arrintaas waxaan leenaha waa dandaas arrintaas waa qadaro arrintaas waa xaduud waxaan leenahay cid walba wadda hadday dowlad tahay iyo haddii dadka oo magac kale iyo wax xirfad gooniya ama maaragta ujeedkooda uu ka dhexeeya jananka haddii ay waddaba waxaan leenahay arrintaas yaa lagu kalsooyi jananku maanta qabiilkiisu dhex jooga xilkiina waa ka qaadeen wixii aan lahaydeen